Kwa majina yangu naitwa Genesis Diongo, kwetu ni Nyeri, nimekuja hapa 1986. James waa muwaadin Kenyan waxa uu ku dhashay gobolka Nyeri oo u jirta magaalada Nairobi 160 kiiloomitir. waxa uu hadda muruq maalate ka yahay xaafadda Soomaalida ugu badan tahay Islii. waxa uu wadaa gaari loo yaqaan Makokoni isagoo qaada alaab kala duwan. waxaan weydiiyay waqtiga uu bilaabay shaqadan iyo waxa ku kalifay inuu qabto. Wajina Genesis Diongo. halkan waxaa imaaday 1986 waxaan qabtaa shaqada gaari gacanka mana qabto shaqo kale oo tan aan ahayn waxaana ku maareeyaa 4 caruur ah iyo hooyadood. dhaqan ahaan Soomaaliya marka la joogo waxaa loo isticmaalaa in lagu raro dameerka culeyska ugu badan uu qaado laakiin muruq maalatada Kenyaanka way ka duwan yihiin sidaasi. iyaga ayaa qaada culeyska uu qaadi lahaa dameerka waxaana taasi u soo dheer dhibaatada ay kala kulmaan dadka iyo gaadiidka isticmaala laamiyada ugu waaweyn ee magaalada Nairobi. Haya kutoka 1986 mpaka 2017 shaqadan gaari gacanka kama helo wax ka badan nolosheyda waxaana dhacda in xilliyada qaar caqabada aan kala kulmo sida dawladda hoose in lagu aflagaadeeyo in lagu yiraahdo gaarigan ka saar wadada laamiga iyo waxyaabo kale. hata kupata 1000 ni shida yani tunakaa hata kwa shida. waa safarkii ugu horeeyay aan ku imaado magaalada Nairobi. waxyaabaha cajiibka aan ku arkay ka mid tahay in qof bila aadan sida dameerka oo kale ugu dhex shaqaysto magaalada Nairobi ee dalka Kenya. gaari Makon waa magaca ay u yaqaanaan dadka Kenyaanka ah ee caasimadda dalka Kenya ku nool laakiin Soomaaliya marka joogtid waxaa loo isticmaalaa gaari dameer taasoo ah culeyska ugu badan inuu qaado Soomaaliya marka la joogo gaari dameerka laakiin taa bedelkeeda marka la joogo caasimadda dalka Kenya magaalada Nairobi qofka bilaadanka ayaa qaada culeyska uu qaadi lahaa gaari dameerka jooga Soomaaliya taasoo qofka bilaadanka mararka qaarkood ku keeni karto caafimaad darro dhanka caafimaadkiisa waana sababta ugu weyn ee Kenyaanka muruq maalatada ee dhibaatada kala kulmaan. Zikriye Maxamuud Timacade, Universal TV, Nairobi.